ما كان نيكا قرأت dumar عبد الرحمن وياه عبد الرحمن واي دوبلو وركازن محا يور رسيته الحمد لله انا ما كو قاعد ادي قرن ويدا لكن نيوم هذا قف إيشو تسكري وإيه ما تعال قواتي ما دالك كم أغيره ها رجعي وصار waxaa دوبلو صاحبك واي ايش جو كور هاي ها ورسو نكن أنا تسرتان كحريستو وحي سؤال قوة وجينا أرنك كان رأينا كويدي مقرد كو سعود جاسميني thank you dhammaantiin waa idin salaamay salaanka bacdi cabdiraxmaan wiilka taxirtaanka xareeya walaal aniga 3 years ago baan maya 2020 waa 4 years ago baa taxi xareeyay two state baan ahaa statekii Minnesota iyo federaalkiiba wiilku xareeyay statekii kaleetuu iloobay ma fahantay markuu iloobay 3 years had sheegaysa 3 years kadib bay warqadii soo direen statement statekii kale xareeyay iyo federaalka state Minnesota ilaaway Minnesota 3 sano kadib bay waxay soo direen warqad ah inaanan 2020 xareynin marka waxaan sameeyay maadaama federaalka iyo state kale aan mataqaanaa federaalka lacag baa awl celin jiray lacagtii aan celiyay oo mataqaan aan xareeyay liiga baahnayn Minnesota kaliya xareeyay ma fahantay and that was year ago marka waxa weli la iima soo jawaabin anee lacag oo 2000 igu soo dalacdeen 2000 iskraafi anaaba lacag ii soo noqonaysay warqadihii aan ku xareeyay baan u geeyay ma fahantay ilaa hadda waa ii aamusay wiilkii aan la hadlay maalin dhaweeto wuxuu igu yiri waxaa wacdaa stateka marka dhibkaas camal ma aragtay qof oo mataqaanaa ka lug baxo waan yaabana wallaahi waxaas oo kaleeto bal ma aragtay weli way dhacdaa oo badanaa dadka badanaa waxay iloobaan state labada state inay diraan laakiin qofka marka uu ku xareeyo saas oo kale ay tahay recordkana waa laga qaataa inuu ku xareeyayna waa la hubiyaa because laba state markay tahay income-ka state-kan income ka soo sameyskan income ka soo sameysay waxa jirta system lagu kala saaro oo state-kan qaybta aan ka sameeyay si canshuurta iskugu badan state-ka kale yes waa keenay cadeyntii wixii dhan marka waa inta u print gareysid downtown St. Paul ku yaalaan gacanta looga geeyaa because waa laga tagay markaan ku dhahay 3 years sugan qofka waxa la siinayaa chance 3 years inuu wax soo saxo moogta hadii marka asixi weydo ayaga ku xareenayo waxay ku isticmaalayaan marka federal income taxigi laga diray isticmaalayaan marka waxa soo baxaysa lacagtii lagu yeelan lahaa way badanaysaa because markii la isku daro labada income oo laba sida ka sameysay federaalka labadaas rabaan moogta laakiin state-ka wuxuu ka rabaa income-ki ka sameysay waa in split lagu sameeyaa marka qofka haduu ku sameeyay waa split waxay ku isticmaalayaan the whole income-kaaga oo laba sida ka sameysay state-kan isticmaalaya maadaama ay federal taxiga ay hayaan sax marka waa dhici kartaa in state-kan lacag intaan ka sameeyay waa intaan gooni in loo xareeyo oo state-ki laga saaray state-ki lacagta ka sameysay state-kan la isticmaalo kaliya noqonaysa marka badanaa way dhacdaa federaalkana laga saaro federaalka lagama saarayo federaalka uu ku jirayaa marwalba marka tan dambe aan xareynayo xataa federaalka ku jiraa federaalka waa baxaraysa state-ki bas ka maqan marka state-ka Minnesota waxa sameynaysa state kale ka imaatay waxa sameynaysa lacagtiisa laga saarayaa meesha waa ka saaray state-ki Minnesota kaliya intii aan ka sameeyay 14 beed ma badneenba ma fahantay ay waxay u maleynayaan barka ididaha income-ka laga kala tagin waa saas because every year waxa la waa signature year oo 2025 taxigiisi waa gooni 24 waa gooni marka badan dadka waxay sameeyaan qayb ay ka tagaan waa waxyaabaha hore looga soo ogaado oo because marka IRS-ta qofka wuxuu leeyahay master file-kaaga waxa galay employer-ki wixii ay ka direen record-kii galay in ka dir lahayd la sugayaa marka kaaga dirtid ay kala yaraato waxa la dhahay under report ka hore kama soo qabtaan waxay soo qabanayaan maybe 3 years kadib lacag ka tagtay kuleeyna ayagana interest iyo penalty ay kugu jirtaa lagu soo diraya
fiiri ugaas cabdiraxmaan oo su'aalaha raba inaan ku weydiiyo duqilo wax yar uga baxaya waxa waaye marka 3 sano year ago baan hadda xareeyay marka welina la iima soo jawaabin marka ma u tagi karaa ma inaan u tago miyaa wiilka waa waa wici kartaa over the phone ka wac okay xagee buu wax maraya kuwa marka aniga war ii soo diray ma ahayn state-ka waxay ahaayeen kuwa collectionka because collectionka jaa way xareeyeen warqaday kuu soo direen maada arkin dan go-aanka waxay waa arkay warqadihii waa u tagay warqadaha markaa ka jawaabaysaa collectionka lagu dirayaa waqti ay ku siinayaan nimankan okay hay marka hadda maxaa samayn karaa waa inaa wacdaa oo hubisaa inay process gareeyeen in kaleto okay way ku soo dhawaahay thank you love maasanta cabdiraxmaan arrinaan rabaa inaa iga caawisid ma garata hay dhalinyaro badan arrintaasina garaa new waxaa la yidhi gigs program I don't know wax soo maleynaa macnaha 2020 iyo 2021 macnaha raggii shaqeeynaha ayaa ka mid ah aniga ma garata weliba taanaan waa ku ay xareen jirtay ma fahmino si fiican marka waxaa la yidhi corona igu dhacday waqtigaas xaas la ahaa carruurta u shaqeynaya la coronihii waa la gabaadhacahaya ma garata si fiican waa shaqaysanayay dadkii unemployment qaat ka mid ma ahayn xoogayga wax kusoo dhacsanaya marka coronihii maadaama igu dhacay oo la xanuunsaday 32,000 caddaankaa la siinahayo la mid baanay sooma teenana muudgal rabsho la mid baa taa laakiin waxaan deadline leeyahay iika cabdiraxmaan waa la mid taa rabsho maxaa ku qoslaysaa ma arrinkaas waa maqla laakiin waa fake news ma garato waa waxba kama jiraan ukaa marka ninkan asaaba ka shaqeey cabdiraxmaan anigu ninaan garanayo oo customerkiisa ahaan jiray fiiri arrintaa ku soconay oo guri baa galay 32,032 waa 64 soma hay arrintaa bal wax nooga dhac rag badan oo teenaanaan yaa dhagaha wada taagahay ma garata arrintaas way jirtaa oo dad badan xariistay qaar waa heleen qaarna waa loo diiday marka waxay ku xiran tahay qofka ku xareynaya markaas sidoo kugu xareeyo dadka qaar macnaha sometimes su'aalaha laga jawaabay qaar mistake uga jawaab macnaha qofku waxaa la rabaa self employee inuu ahaa inuu waqtiga shaqada ka fadhiyey caddeyn u hayaa wixii waxaa laga rabaa mideeda kale 2021 iyo 2020 income taxiga xareysaa laga rabaa hadday wax isbedel ku jiraan income-ka hadduu sidii ahaa iyo hadduu ka batay iyo hadduu ka yaraado meesha lagu ogaan lahaa waa labadaasaa lagu weydiinayaa dad badanaa xareysta hale waa arkay dad badan xareysto loo diiday waa arkay because waxay fiirnaa income-kaagi inuu mataqaanaa difference ku dhacay inuu hoos u dhacay 2020 income-kaa samaysay 21kii inay hadday isla ekaadaan waa lagu diidaya hadday kala yaraadaan laakiin waa lagu siinaya laakiin hadda tusaale aniga hadda fiiri 2020 oo kale waxaa sameeyey 210 2021kii waa la wada fadhiyay dadkii aad u shaqaysanaa ka mid 200 iyo waxaan sameeyay 47 macnaha miisaaniyadaasi macnaha difference way keenayso ma maadaama ka lacag badneed adii eligible uma tihid 2020 ka lacag badnaa laakiin 2020gii lacagteeda way hooseysay waa inay sanadka labaad ee lacagtaada yaraataa lacagta aad samaysay 2020gii ilaan bandamiga 21 waa moogta ما برنامج سو 19 كي ما هين ي 2020 marka waxaa la fiirinaa 2019kii waxaa la fiirinaa waa ka yarahay 19 aad baan uga yarahay oo marka ya macnaha waxay fiirinayaan 2019kii iyo 2020 isku fiirinaya marka 2019kii hadday lacagtaada ka badnaato 2020gii eligible aa u tahay oo ku siinayaan laakiin hadday ka yaraato 2019kii iyo 20gii 2019ku bandamiga dhacso maaha uu bilowday dhammaadkiisa marka hadday lacagtaada yaraato 2019kii ay badan tahay 2020gii lacagaa kaa maqan saasaa lagu siin laakiin 2019kiiba ay ka badan tahay 2020gii marka eligible uma noqonaysid that means 2020 hadday lacagtaada badan tahay eligible uma tihid yes 2021 hadday lacagtaada kor usii kacdana eligible uma tihid ma tihid marka waxaaba la isticmaalaya 2019kii 2020ga la isticmaalaya annaga yaan habaaro baas war ilaahay amarkiisa hada tusaale
19 anigu lacagtaydii macnaha waa kambaniya markaasi waa maraan tenana galahay liis gaari markaasaan gaari soo gato oo soo qaato magarad okay 19kii waxoogoo yar baan ka soo shaqeeyey lacagta markaa aad umaysan badnayn 2020gii 19kii wuu ka badnaa haddana 2021kii waa markii ay dadku wada fariisteen dee taraqlayaasha bisun baa lacag heli jiray maogtahay cabdiraxmaano si fiican 2020gii waxaan sameeyey 210 2021kii waxaan sameeyey 247 magarad marka anigu caddaanka hadda marka waa ka harnay markaa macnaha dee qofkii waxaa rabaa inkamkiisa inuu decrease ku dhacay ama inkamkii inuu yaraaday haddaaba inkamkaaga sii badanaya that means eligible uma tihin dadka la siinaya waa dadka lacagta loosgareeyey oo lacagta ay ka yaraatay okay so that means marka in annagoo Soomaaliya waagaas greedy ahaan suuqu noo fiicnaa baraaya taagneen marka hadda waxaan marka lacagtan waa wax jira laakiin Soomaaliya 32dan way jirto macnaha 32 lama wada siinayo qof macnaha maximum ka waa ma fahanti qof waxaa la siinayaa 5000 qof waxaa la siinayaa 6000 qof waxaa la siinayaa 30 marka waxay ku xiran tahay income-kaaga siduu ahaa ku xiran tahay hadduu xataa yaraa kulli guarantee ma waa macnaha up to markii lagu dhaw macnaheeda waxa waaye you may be qualified 30 you may be qualified less like maximum ka wuxuu ahaa 32 okay هاي الرمشة وفيك نيوز هاتر وحن عدانك قرنها يسموك Guys, I have breaking news. I have breaking Guys, I have breaking news. And Somaliland was in the Epstein files. على وشك هنا. معناها الشمال لا يساق من قبل ربك كذي جرين. No. العسى إنه لا هنين ده تشرب له. No, waxay ka dhahan la idin sheegi karaa because waxan waa taariikh gadaal they went back waxaad dhacay maaha but sida u dhigayaan Epstein iyo nimanka waxay ka sheekaysan jireen inay furaan meel studio wink wink iska fahano xilay waxay sameynayeen iyo studio rabeen in Soomaaliland ka furtaan ee dhahan ilmaha modeling iyo waxyaalo oo educational sida Nickelodeon camal Nickelodeon meelaha oo ilmaha oo like oo dadka lagu soo jiito ilmaha filmada soo gali iyo waxaas ay rabeen Somaliland ka dhisaan they were going to call it Somalywood as absi guys you guys don't get it nimankii wax furfurid astaghfirullah oh my goodness waa taraaraxay nimankii ilmaha suquujin jiray right they were planning inay Somaliland ka furtaan wax beebeen hoos ay dadka ka gadaan oo Somalywood la dhaho they already did it away qaali dumar waxaa jirta meel Somaliland waxaa jirta meel dhoo abaarso waa maqsuma Malay ma maqleen hadda I'm just getting home I'm taking my jacket out literally I have no idea what's that one is a different with Epstein laakiin meel waxaa jirta abaarsan dhoo hal raadi meeshaas niman Amerikaana oo magaranaysaa dee Mareykan degan oo laqaale haysto iskuulay fureen the school laakiin dee waxaa la yiraahdaa ardayda intelligent ee Somaliland degan especially saaqa qabiilka dhoo yaa lagu soo saarayaa markay qualified u noqdaan dee waxbarashada caalamka annaga u fududeynna jaamacadaha caalamka inaan geyno abaarsi marka Cabdimaalig Muuse Coldoon inay dhihi jireen mar walba la xiraa jiro asaadaba gal ku sameeyey macnaha carabka ayay taagahayaan carruurta abaarsa dhigato always they choose most beautiful woman and the most like Soomaaliga ragga kuwa ma garanaysaa like hooyada aad u jecel ma maqlaysaa qaale ما مغشاه wiilasha hooyooyinkooda aadka u jecel ee naxariista badan yaa iskuulkaasi aad macnaha looga diiwaangeliyaa okay iskuulkaas laga war doono abaarsaa la dhahaa
ما والله laga war doono because nimankan wax ma aha oo lacalla ma aha lacalla waa laga soo tagay okay this Hoping is I'm not lying anybody. no guys siyaasadda waxaas laga dhigo ilmaha iyo dadka in la badbaadiyo waa muhiim it doesn't matter where you come from let's not be dad jaahila oo wax walba qabiili ka dhiga iyo qurun okay this is just ani hadda no matter where you're from haddii maanta qabiil fiiri qaali no not you I'm saying dadka oo dad baa hoos ugu soo qorayaan Soomaaliyan wax ka sheeg camal Soomaaliyana may jooga no this is just specifically that's what hadda aan isku balaariyay because marabi ina sheekada dhinac kale urugti this is literally a proven fact DOJ ga hadda aadi kartaa this is not wax Soomaali fuulstooyo waxaas ma aha these guys were talking about nimankan ilmaha faraxmeeya waxay ka sheekeysanayaan inay studio u sameeyaan Somaliland. That's just a fact. Yeah, but already they built it. Anigu taas aan ku leeyahay abaarso school. Taas ma maqlin. Ba waxa ka wadaa haday jirto abaarso ma qashin weliga. Wallahi ma maqlin. Weliga xitaa Soomaali ma aad. Abaarso school never weliga adoo Soomaali ma maqlin. Weliga ma maqlin. Ani hal school ba maqlin jiro oo wiilka ma xasuustaa loo xirin jiro oo la dhihi jiray he did an investigation. Abdulmalik maxaa loo xiray yaas? Codkan maxaa la jiray wiilka maxaa something I don't know. Abdulmalik Muuse Coldoon baa la dhahaa anaba ku sheegay ma kaas baa iskuulka la dhihi jiray asaga loo xiray abaarso ha because waxa furay okay weliga ma arkin but I've heard rumors like waxa school oo yaro suspicious ah inuu iska jiro inoo sheeg ha I want to show dadka cadeynta oo qalbada jabanta qabiil ka buuxo this is something else okay take a screenshot if you need more proof. All the Epstein files or los maanta la soo dhigay meel bay wada yaalaan ookiyaalin xirta soo aqrista fuusto iyo waxaas waa laga tagay okay maskaxda furfura okay this is very dangerous subhanallah if they were thinking about doing this whether it's Somalia or Somaliland